يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. kusoo dhawaada qaybtii saddexaad ee qirashadii jaajuuska. waxaan heshiis la galnay ninka xanuunsan inagoo ka raadinayno faa'iido. waxaan kula heshiinay inuu furo macaahid hoostaga wasaaradda gumeysiga. xubnaha aqoon-yahanada ee wasaaradda gumeysiga waxa ay soo saareen in ninkan xanuunsan awoodiisa iyo barnaamijkiisa uu burburayo wax ka yar hal qarni. waxaan kale oo heshiis hoose aan la galnay dowladda Iiraan inay noo furto dugsiyo waxbarasho oo hoostaga wasaaradda gumeysiga. waxaan kale oo aan barnay rag dooli ah oo aan ka dhignay rag jaajuusiin ah oo laaluushka qaata. maamul xumada iyo mashquulkii madaxda islaamka ayaa waxa ay noqotay mid musqaamisay horumarinta culumta islaamka. madaxdii waxa ay ku mashquuleen lacayridda gabdho qurux badan, waxay hilmaameen shaqooyinkoodii. arrintaasi waxay horseeday burbur jiritaankii laba wadan, hindiya iyo shiinaha. laakiin anagu ma aanan ahayn kuwo ku kalsoon natiijadaas dhowr arrimood dartood. kow, awoodda islaamka ku dhex jirta khuluubta carruurtooda. maxaa yeelay ninka ah hogaamiyaha islaamku wuxuu awood u leeyahay inuu soo jiito dadka muslimiinta ah oo dhan. maxaa yeelay islaamku wuxuu muslimiinta u joogaa booska ay masiixiyadu u joogto baadiriyaashu. muslimiinta shiicada ee ku nool waddanka Iiraan waxay ahaayeen kuwo khatar badan leh, sababtoo ah waxay u arkayeen qofaan shiica ahayn inuu yahay gaal mushrik ah. waxaa la weydiiyey mid ayaga ka mid ah, maxaad ka sugayseen masiixiyadu? waxa uu ku jawaabay, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, islaamku waxa uu ahaa mid xikmad badan. waxa uu doonayay inuu u qorgeliyo gaal walba wareeg cadaadis ah xagga akhlaaqda si uu u dareemo cidhiidhi, si ay u muuqato sabab uu u hanuuno wadada alle iyo diintiisa saxiixa ah. waxaa la weydiiyey najaasada uu ku sheegay qofka aan shiiciga ahayn waxa ay tahay. waxa uu yidhi, najaasadu waxa ay kulmisaa sunniga iyo gaalka. waxaa la weydiiyey maxaa ka dhigay sunniga iyo masiixiga najaaso iyagoo aan rumaysnayn allah subxaanahu watacaala iyo maalinta aakhiro. wuxuu yidhi, laba arrimood. midka ugu horeysa waxa ay beenisaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. arrinka labaadna waa masiixiyadu u tiriyaan ambiyadii allahu tacaala waxaan u qalmin sida ay ku sheegayaan nebi ciise calayhi salaam inuu ahaa mid cabo qamriga iyo inuu ahaa mid la nacladay. maxaa yeelay waxaa la suray tiir. wuxa uuna yidhi si la yaab leh, masiixiyiintu ma aaminsana waxa aad leedahay. waxa uu yidhi, adigu ma ogid in kitaabkan muqadas uu yahay agtooda. kadibna uu aamusay. adigu waxaan ku kalsoonaa ninkan inuu ka been sheegayay arrinta dambe. haaba ka been sheegee, midda hore maanan doonaynin inaan hadalka ku dheereeyo ninka, maxaa yeelay waxaan ka baqayay inuu ka cararo agteyda. maxaa yeelay anigu waxaan u qadcikaa nin muslim ah. mar walba waxaan ka dheeraanaynay meelaha khatarta ah. 2, islaamku wuxa uu soo maray waqti awood iyo kala dambeyn uu lahaa, muslimiintuna ay ahaayeen madax. waxaan ku adkaysanaynay inaan ku tiraahdo dadka madaxda ee islaamka, waxaad tihiin addooma. nooma suuragelin inaan ka been sheegno taariikhda islaamka si aan u dareensiinin muslimiinta madaxtinimadoodii inay gashay meel fudug oo adag, inay u wareegsatay meel aanay ka soo noqon karin. qodobka 3, waxaan ahayn kuwo aad ugu walaacsan dowladda cusmaaniyiinta iyo Iiraan inay soo celiyaan awoodoodii. sidaa darteed ay naga fashilanto qorshaheennii ku wajahnaa qabsashada labadaasi wadan. labadaasi xukuumadoodna waxay ahaayeen kuwo aad u daadaran. waad ku mahadsan tihiin daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena, nagu soo biir oo subscribe saar. waxaa inaga codsi ah ugu yaraan hal qof oo asxaabtaada ka mid ah inaad gaarsiisid kanaalkeena. mahadsanidin. bye bye.